Adadani waa cimri ku qaadasho markii aad daawato kadibna waxaad ogaan doontaa in qoraalka la mooyee wax kale aynan kugu dhacaynin. Waxay dhacdadani ka dhacday wadanka Germany qayb kamid ah magaalo Germany markaasi ka tirsan ninkan oo meesha ka adeeganayay ayaa waxa markaasi dhacday inuu markaasi uu albaabka markii uu ka baxo ay dhacdada ayaa badan oo cimri ku qaadasho mudan waxaan arki doontaa ninkan markii uu baxo kadib ninkan ayaa markaasi adeegiisa isagaba albaabka soo riixaya maadaama uu laba gacmood wax ku wadana waxaan ku yiraahdaa xooga uu ku raagay albaabka meeshan calaamada idin saaray ayaa wax ka qarxi doonaan idinka waxaan insha Allah rajeynayaa inaad wada daawataan ninkan mar alaala markii uu sidan u baxo ila fiiriya mar alaala markii uu sidan albaabka uga baxo oo uga degto oo xooga uu fogaado kadib ayaa waxa dhici doono ila fiiriya markii uu baxo kadib ila fiiriya waa kaas fiiriya meeshan calaamada idin saaray bow ay dhigi doontaa meesha ay ku qarxi doontaa wallahi arintani dhacdadani waxa dhamaan laga buubuuninaya ama laga hadalhayaa social media dal iyo dibadba waxa ayna dadka oo dhan ay leeyihiin waa yani dhacdo la yaab badan xataa ninkii ay dhacdadani ku dhacday waxa la yiri wuxuu la ooyay baa la yiri wuxuu aaminsanaan jiray inuu markaasi maxaan ku yiraahdaa يعني wuxuu aaminsanaan jiray yani wax walba ay ku dhacayaan dhacdadan darteed ayuu u islaamay ninkii wallahi waa ajaa'ib sababtoo wuxuu u islaamaya horta ninkan aad u jeedaa waa nin weyn oo cimri ah dhacdada darteed ayuu u islaamay marka ay leeyahayna waxay tahay maadaama ninkan markii horeba diintu una haysan haddana wuxuu arkay awood Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu Ilaahay ka badbaadiyay awood Ilaahay ma qarsanto haddana yani waxaan ka wada isaga aan waxa jirta dhacdo adig kugu dhacday dhacdo dad kale ay ku dhacdo wayna kala xanuun badan tahay farqi weyn ayaan u dhaxeeyo dhacdadan ninka markaasi markay ku dhacday kadib ayuu markaasi ninkan waxaan ku iraahday go'aan ku gaaray inuu diinta islaamka qaato Ilaahay subhanahu wa ta'ala inta yar cimrigiisa ka dhiman oo Ilaahay markaasi si islaamnimo ku caabudo wax walba ay ahaato meesha uu ka baxay dhan sidaas ayay u qaraxday waxa ku iraahday ilaa meel yar oo albaabka dhan uu jajabay waa u jeedaan haduu ku jiri lahaa dawuu jabi lahaa horaan waxa loo dhahay qof walba waqtigiisa waqti looguma dareeyo dadka qaar ee marka inta la soo waco la dhahayo waa ku dileena waa ku yeeleena oo isla markii intay argagaxaan ama ay cabsadaan maxaan ku iraahdaa isla markii sameeyo yani maxaan ku dhahay cabsi badan oo dhahay maxaan sameeyaa ya islaam aad meeshan waxa ku iri ama askari ha ahaado ama nin qoriga ugu weyn wata ha ahaado ama nin dhashiika wata ha ahaado waxa uu raba ha ahaado Ilaahay subhanahu wa ta'ala xiligu ku dilo ayaad dhimanaysaa xiligu Ilaahay ku qoro ay wax ku gaariyaan xiligu Ilaahay subhanahu wa ta'ala ee awood badna naxariis badna xiligu Ilaahay ku saxiixa kugu duugo ay wax ku gaariyaan nood haduu ninka ugu weyn oo ugu gaangiistar oo ugu maxaan ku dhahay mindida haysta oo qoriga haysta maxaan ku radaa ha ka baqin Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu kugu sameyn ma kugu dhacayaan hatta hadii aad aragto nin kala dilay sabab uu noqdo maahay Allah subhanahu wa ta'ala ayaa saxiixa ku dugay oo qoray ma aha inuu ninka wax dili karo Ilaahay baa wax dili karo sida ninkan aad ka arki doontaan ninkan qisadiisana waxay noqotay dad badan ay cimri qaadasho noqotay hatta qaar kamid diinta dadka gaalka diinta islaamka ay maxaan ku dhahay ku hogaamisay halka dadka qaar oo islaamka ah ay xoogaa yar iimaanka ku yaraan iimaan buuxo uu noqday waan ku faraxsanahay in maanta wiilkan intaas isagoo sano oo cimrigiisa xoogaa wax badan uu jiro dhowr iyo konton jir haddana uu diinta islaamka qaatay insha Allah waxaan leenahay Ilaahay kugu adkeey diinta islaamka macaankeedaysan Ilaahay ha ku hanuuni diinta islaamka waa macaan aan laga sheekeyn karin Ilaahay subhanahu wa ta'ala hanugu adkeey meel walba joogno dhacdadana waxaan jeclaaday inaan idin la wadaago maadaama la yaabka ugu weyn ay tahay la yaabka weyn dhacdadana ma jiraan aaminsanahay